wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u soo tibaaxaya inay jiraan caawa weerar culus oo lagu qaaday hotel Al-Hayat oo ku yaala agaarka kilomitir magaalada Muqdisho kooxaha weesanayaa gudaha u galay hotelka Al-Hayat walow aysan war cad hadda laga soo gishay karin dagaalka hadda ka socda isla markaana waxaa jirta in kooxda weesanaya weerar ku qaaday hotel Al-Hayat oo ku yaala nawaaxiga kilomitir magaalada Muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaga goobta soo gaaray in halkaas la maray dhawaaq rasaas aad u xoogan oo goosgoos ah oo labada dhinacba xilligan ay adeegsanayaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ilaa haatan lagu soo dhoobay iskuulada weyn ku yaala caasimadda Soomaaliya Muqdisho isla markaana sugaya ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya hotel Al-Hayat wuxuu ka mid yahay hotelada weyn ku yaala caasimadda Soomaaliya isla markaana ku yaala nawaaxiga kilomitir Muqdisho waxaa degan dadka madaxda ka shaqeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya mana cadda shakhsiyaadka soo weeraray isla markaana waxaa la sheegayaa inay yihiin kooxo hubeysan isla markaana gudaha u galay hotel Al-Hayat oo ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho laamaha ammaanka ee Muqdisho ay haatan ka bahaysan khaldin weerarka ismidaynta iyo sidoo kale ku bilaabeen qaraxyo walow aysan warar rasmi ah haatan naga soo gaarin iyadoo ay jiraan in hadda rasaastu ay ka dhacayso gudaha hotelka Al-Hayat ee magaalada Muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xoog kala duwan ka saaraya walow aysan jirin war cad haatan si rasmi ah u soo gudbin doona daawashada ku xiran channelka YouTube-ka ku leenahay hanaanka wararka insha Allah wararkeena ku doonta wixii wararka ka soo kordha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.